kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba soo dhawaada saaxiibayaal. maanta waxaan doonaynaa in aan ka hadalno dagaalka u dhaxeeya ciidanka deegaanka kilka shanaad ama Soomaali galbeed iyo ururka al-shabaab. sidaad u ogtihiinba ama aad la socoteen ama warbaahinta kala socoteen maalmihii hadda aan soo dhaafnay waad ka wareyseen inay dagaalku ururka al-shabaab xeryaha ciidanka liyu booliska ay ku lahaayeen meelo badan ay qabsadeen sida yeed iyo aati iyo ay qabsadeen. dagaalkii waa uu sii socday ilaa uu la sheegayo meel yiraahdo hulul oo halka gudaha oo waliba ay oo dagaalkii ka qarx haddana mar labaad haddana waxay sheegayaan ciidanka gaarka deegaanka uu leeyahay loo yaqaan liyu boolice ayaa waxay sheegeen in ay soo afjareen. haddana wax hadda la sheegaya haddana soo kordhay inuu meelo hor leh oo ka qarxay dagaalkii oo hadda sidii saaka la sheegayo aan maqalay ama wararka sida hadda hoose loo sheegayo oo dagaal hor leh u bilowday ayaa la sheegayaa. marka hadda waxaan wareysan doonaa haddii la yiraahdo walaalkeen Cabdi Mahdi oo waliba gaar ahaan meesha deegaankaasi aqoon u leh magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo wadooyinkeeda meesha biyaha leh meesha biyaha lahayn wax dhan yaqaana ayaan rabnaa inaan wareysano oo xog uu naga siiyo. mudane Cabdi Mahdi bal ku soo dhawow barnaamijka. waxaan doonayaa dadka Soomaaliyeed in uu aad wax u sheegtid sidii qaabkii hawsha u dhacday iyo aqoonta u leedahay meesha deegaanka. soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka. waad maasantahay waan dhawahay maasantahay kulli ummadda Soomaaliyeed si la socotay usbuucan dhan wuxuu iska usbuuc dagaal guud ahaan iclaamku sida ku jirtay ama warbaahinta xarakada shabaab waa kii ay weerarka ku qaadeen xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya yeed iyo aato halkaas khasaare ayaa ka dhacay. kadib waa iyagii sii gudbay halka ay hulul ay saldhigteen meesha la yidhaahdo halkaas marka dhowr beri muddo ilaa 3 beri dagaal baa ka socday. ugu dambeyntii dowlad deegaanka khasaare ballaaran ayaa halkaa ka dhacay. wararkii horena maayna idin kula wadaagnay. maalmo dagaala kadib dowlad deegaanka Itoobiya ee Soomaalida Itoobiya waxay sheegeen in ay soo afjareen wejigii koowaad ee dagaalka. halka marka lagu soo afjarayo hawsha ka socotana waa meesha la yiraahdo hulul ilaa iyo meesha la dhadhafi. halkaas marka haddana waxaa soo cusboonaya in warar kale hadda maanta la sheegayo inuu ka socdo dagaal meesha la yiraahdo Feerfeer meel u jirta 20 kilomitir oo la yiraahdo Laasqurun. halkaan ka dhaxgalo mudane Cabdi Mahdi Laasqurun la sheegay hadda dagaalku ka socdo xagee ku taala intee la bidlaki xuduud u jirta ayaa isleedahay si meeshaasi waxa weeye Laasqurun meesha la yiraahdo waxay 20 kilomitir u jirtaa Feerfeer degmada Feerfeer bay u jirtaa. Feerfeerna si aan ognahay waa xadka ku taala xadka u dhowday aad bay ugu dhowdahay. marka meel dhanka dowlad deegaanka Feerfeer 20 kilomitir u jirta ayuu dagaalku ka socdaa maanta. waa dafcad hor loo kale oo ka soo xagga Soomaaliya ka soo gashay oo al-shabaabkii ah halkaas ayaa maanta la isku far saaray welina dagaalku uu socdaa. wixii natiijada hadii Ilaahay dib ma insha Allah wakiil ka heli doonaa laftan. waad mahadsan tahay mudane Cabdi Mahdi. laakiin waxaa la sheegayaa dagaalkii ka socday meesha loo yaqaan hulul iyo meelaha kale aaga la halmaala ama ku dhadhow waxay sheegeen dowlad deegaanku ciidanka liyu booliska inay dagaalkii soo afjareen. haddana baladsay kula muuqtaa arrintaasi balse oo aragtaa bal dagaalkii ma istaagay mise weli waa sii socdaa. waad mahadsan tahay. dowlad deegaanku way sheegeen in macnaha dagaalku ay soo afmeereen wejigiisa koowaad. halkaasi macnaha waxaa laga fahmi karaa nimankaas saldhigyadii hore ay ku jireen in laga bixiyey laakiin weli dad firxada oo la daba taagay inuu jiri karo macnaha halkaa laga dhansan karaa. marka sidaan wararka ku helinana shalay galabtii abaar 10 saac ilaa xali fiidkii in meelaha dagaal ka jiray waa la sheegay dhadhafay. halkaas khasaare kalena haddana uu ka dhacay. nimankii qowgu waa ka degeen xagga adahooda shishe u dhaceen. marka ayagoo isku dayay inay macnaha ay ka baxsadaan meesha hore ee macnaha dhibaatada ka dhacday una sii siqaan goobtii ay islahayn marka hore way ku socoteen. marka ciidamada dowlad deegaankana marka ayagoo aad u fara badan baa meelo badan ayay joogaan. marka fursad kasta oo meeshaasi ka soo baxda in ay macnaha ayna beerdareen iyo isku dayeen ayaga laba dhinacba. marka sidaas ay hadda xaalku marayaan. mudane Cabdi Mahdi waad mahadsan tahay faafaynta naga siisay dagaalka iyo meelaha uu hadda uu ku ekaa iyo sida u bilowdeen. sidaad ogtahay dagaalkii maadaama uu socday dagaalka
meesha loo yaqaano huluul sheekadiisii iyo hadda aag kaloo cusub oo bilowday oo hadda meeshan feerfeer iyo aaggaasi dagaalkaasi maxaad is leedahay inuu sii socon karo iyo in lasoo afjari doono iyo see kula muuqataa kolley hadba waxay ku xidhan tahay fursaddu siday u saamaxdo waxaan waa ciidamo isdiriraya dhul bannaan ayaa laisku dirirayaa marka hadba dagaalku waxaa la waa khayaamo marka sidii loo kala khayaamo bato ayay ku xidhnay taas marka waqtigan u daynaa midaas okay waa mahadsan tahay mudane cabdi mahdi barnaamijka anagoo doon inaan soo gebagabayno say kula muuqataa maadaama deegaanka hadda dagaalku ka socdo abaaro ba-an ay ka jiraan oo ummaddii soomaalida halkaa deegaanka deganeed ee abaar ay ka jirto shacabka siday u saameyn mudane cabdi mahdi waa mahadsan tahay sida aad u sheegtay ama aad u qaada dhigtay ama aad si humaaga aada oga sheekaysay ciidanka liyu booliiska sidaad og tahay aag bay marka hore ku wajahnaayeen ku kalena waa furmay kula tahay in ay arrintaas ay wada kaafeyn garan karaan oo ay arrintaas o dhan ay gacan ku dhigi karaan ama ay u qeybsami karaan kula tahay arrintaasi dagaalada labada qaybood iyo qaybahan kale hadda midda waxa kale kugu darayaa ma wax aag oo kale oo saddexaad ayaa jira oo hadda la sheegayaa inay jirto yaa jira waad mahadsan tahay wararka haddee way iska faraban yihiin kuturkutaan wixii xaqiiqa un baanu sheegi karnaa oo marka aan aragno ama media uu sheegay ama dadka goobjoogayaasha aanu markaa kala socono marka meelahan qalafayda waxbaa lagu sheegayaa wax warbixin aan maqalnaa waa dad ay leeyihiin macnaha ciidamada gudbay waa xagga dhanka qalaafa aageeda inta waan maqlaynaa laakiin run iyo baan waxay tahay inaan ma xaqiijin karno taasi waa midaas dhanka kale new bols ma xakamayn karaan jabhadaha faraha badan ama furimaha faraha badan yaad i weydiisay waan filayaa saa dabcan ha jawaabtu haa new bolisku maaha ciidan yar oo maleeshiya beelada meel fadhiyamo waa ciidan dowladeed waa ciidan aada u ballaaran waa ciidan marka ugu yaryahay 50,000 70,000 qiyaasta meelaha ka kacaya marka way handal garayn karaan way kaafar garayn karaan baan isleeyahay jabhadaas iyo jabhada kale macnaha furintaas iyo hadda ay ka dagaalameen iyo tan hadda cusub ee maanta socota iyo kuwo kale soo bixi doona laga yaaba soo baxanba way awoodaan inay macnaha ay la tacaalaan saan macnaha aan ka haysto aragtida aan ka haysto mudane cabdi mahdi ciidanka haddaan su-aal kale ku weydiiyo ciidanka federaalka ee dalka etoobiya ma qeyb bay ka yihiin dagaaladan iyo howlgalladan mise ciidanka liyu booliiska ee uu leeyahay dowlad degaanka keliya miya arrintaasi hawshaasi kaafgaraynaya mise maxaad ka haysaa ciidanka la sheegayo inay leeyihiin ama ha noqdaan kuwa liyu booliiska ama ha ahaadaan kuwa ciidanka federaalka ee laleeyahay meelihii hore ee dagaaladu ay ka bilowdeen xuduudda soomaaliya ayay gelayaan ama gudaha soomaaliya rabaan inaan galna ay leeyihiin baa arrintaasaa la sheegaya maxaa ka jira ood ka war ka haysaa waad mahadsan tahay soo dhawaada dowladda federaalka hadda ka hor qayb kama aynahayn dagaalka sida macnaha aanu wixii war aan hayno xogta aan hayno laakiin waxaa la sheegayaa hadda maanta wararka na soo gaaraya in boqolaal askari oo federaal oo xoojina hadda macnaha lasoo diray oo xagga xuduudaha u socda intaa waa intaas wixii hore dhacayay iyo wix hadda maanta dhacayaba sida aan xogta ku hayno ciidanka new bolisku ay ku kooban tahay federaalkuna waa laga yaabaa hadda sida wararku leeyihiin hadda iyo kadib wixii ka qayb qaadan karna ka qayb qaadanayaan waxaa kaloo suurtagala su-aasha kale weydiisay in soomaaliya loo soo gudbo waayo hadda kahor waan ogeyn in macnaha ciidanka new bolisku ay gobolka boqol ee aada ugu soo milmeen oo meelo badan imaadeen marka lama dhayalsan karo macnaha maadaama oo loogu tegay guryahoodii waa laga yaabaa ayagana jawaabteeda kale inay bixiyaan oo soomaaliya usoo gudbaan ayaga iyo macal federaalkooda